waxaanu sheegaynaa dowladda ingiriiska second world war first world war 50,000 isaaqa ayaa ku dhintay waddankan annagaa iska lahayn ingiriiska john major annagaa dhalay tony blair annagaa dhalay douglas annagaa dhalay kinig annagaa dhalay oo welisha annagaa waxaan soo korinay maanta waxaan ay ku qaadayaan maanta annagaa leh dowladda ingiriiska waxaanu sheegaynaa you don't forget them 50,000 naftooda ku huray second world war first world war 50,000 waliba wada isaaqa kala saari 50,000 ayaa ku dhintay magaalada annaga Germany Japan annaga ka dhifis gareynay Italy annaga ka dhifis gareynay marka waxaanu sheegnaa dowladda ingiriisku inay aqoonsato Republic of Somaliland dimuqraadiyad bay maanta samaysay caalamiya saddex xisbi maanta ka jira waddanka ingiriiska ayaa maanta ka jira Labour iyo Conservative iyo Democrat ayaa ka jira Somaliland aan waxa laga magacayga waxa la yiraahdaa Professor iyo Pascalo Reagan labada waddanka joogay iqaamati bay ka dhaxday waxaan doonayaa inay waddankayga ku noqdo bilaan ka soo sharaxay ma yarka dhamaanta iqaamati way ka dhaxday take me home ayaan qaadaya take me home wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh